haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa subscribe inoo saarto isla markaana aad gambaleelka furato si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aanu halkan soo gelino sidoo kale muuqaalka like-ta saar ee like-tu lacag ma aha xaasidiinta waxaanu leenahay waa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax biidni illaahi alkariim waxaa kuu dambaynaya hoog iyo khasaaro maxaa yeelay xaasidku ma aflaxo xaasidku waa midka ka soo qaylin doona kana soo hadli doona qaybta hoose ee fariimaha muuqaalka like-ta ku dhufo like-tu lacag maaha waxaan eegi doonaa barnaamij ku saabsan dumarkii Soomaaliyeed oo cimaamadihii iyo weliba khamiisadii suuqa ka dhameeyay isla markaana ku labisanaya cimaamadaha iyo khamiisada isla markaana style u haysta amba in ay nashqad cusub ay la soo baxeen balse arrin laga xumaado oo naxdin badan barnaamijkaas oo dhameystiran ayaanu ku eegi doonaa maanta barnaamijkeena guud ahaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada kadib barnaamijkeena oo dhameystiran ayaanu dib iskugu soo laaban doonaa bushaaro waxaan ku haynaa laabtooyo qiimo jaban kaliya waa $100 haddii aad u baahan tahay ay ku cajib galiyeen waxaad kala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada kaga muuqda laabtooyadan waa laabtooyo laga keenay dalka Norway isla markaana aan la soo isticmaalin laabtooyadan kaliya hard disk-gooda ayaa 8 GB sidoo kale way fiican yihiin haddii ay ku cajib galiyeen la soo xiriir lambarka shaashada kaga muuqda isku soo laabasho wacan qadarka adeega bulshada barnaamijkan ayuu toos u guda geli doonaa waxaad la socoteen ama sida dhawaanahan iyo baryihii dambeeto waxaa social media qabsaday gebi ahaanba in gabdhihii Soomaaliyeed ay inta cimaamado iyo weliba khamiis soo xidhaan ay sawir soo galaan arintan waa dhaqan ugub ah oo aan looga baran hablaha Soomaaliyeed yacni dhaqan islaam midna maaha yacni in ay gabadhu xidhato dharkii lagu talagalay ragga iyadoo ka dhiganaysa style amba inay qurux ka dayeyso arintan waa arin argagax iyo weliba naxdin badan waana arin run ahaantii aan gabdhaha Soomaaliyeed u baahan in laga wacyigeliyo oo loo sheego arrimaha diinta islaamku ay ka qabto inay tahay arin aad u xun oo nacdal ay ku socoto haddaba arintan ayaa arin aad iyo aad u soo badanaysa baryihii dambeeto waxaana la arkay gabdho Soomaaliyeed oo inta ay soo xidhaan khamiiso iyo sidoo kale cimaamado sawir soo galaya arintan ayaana sababtay in gabdho badani ay soo galaan sawiro isla markaana ay ku soo galaan waliba iyagoo wali khamiiso xidhan sidoo kale cimaamadihii ragga lagu talagalay arintan ayaana sababtay in suuqii ay ka dhamaadaan cimaamadihii waliba qaarkood qaali ay noqdaan taasoo sabab noqotay maadaama ay dumarku aad u dalbanayaan cimaamadaha iyo waliba khamiisada dumarka laftigooda qaar baa intay ka soo qaataan walaalahooda khamiisada ay leeyihiin intay ka soo qaataan kadib sawir ku gala muhiimaduna waxa weeyaan in sawir ay ku galaan laakiin ma ogsoona in sawirka ay galayaan ay nacdal ku socoto isla markaana haddii ay share ay sameeyaan amba share lagu sameeyo sawirkaasi meelo kala duwan la geeyo nacdashu iyo weli dambiga ay ku leeyihiin way ku sii badanaysaa fadlan ka digtoonaada wixii diintaada ugub ka ah kana digtoonaada walaalayaal sidoo kale waxaa muhiim ah in yacni gabdhaheena Soomaaliyeed oo lagu yaqaan marka horeba dhaqan wanaagsan in ay dhaqankani ay ku soo bataan run ahaantii waxaa loo baahan yahay in walaalayaal in la iska dhaqan geliyo amba la iska wacyi geliyo arrimaha anshaxa xun ee waliba diinta ka baxsan run ahaantii khamiiska iyo waliba cimaamadaha waxa lagu yaqaan inay yihiin labiska ragga run ahaantiina lagu talagalin markeeda horeba in ay dumarku xidhaan waana dhaqankii rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu khamiiska ay ku labisan jiray haddaba yacni in la shabaho ragga ay dumarkuna shabahaan ragga sidoo kale raggu ay shabahaan dumarka waxaa ku soo aroray xadiisyo aad u tiro badan ayaa ku soo aroray xadiisyadaasoo yacni la odhan karo waa saxiix run ahaantiina xadiiska koobaad haddaynu soo qaadano lacana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu nacdalay almutashabihiina min alrijaali binnisaa yacni ragga shabahaya dumarka iyo sidoo kaleba walmutashabihaati min annisaa'i birijaal sidoo kale dumarka iyaguba shabahaya ragga sidoo kale labadaba rasuulku wuu nacdalay ragga isu ekeysiinaya amba ha xidhaan dumarka dharkooda amba wax kale oo dumarka lagu talagalay ha xidhaane rasuulku wuu nacdalay sidoo kale laftigooda dumarka iyaguna xidhanaya dharkii lagu talagalay ragga
amba waxyaabo kaleba ha aadaan ee ragga lagu talagalay rasuulku waa uu nacdalay sidoo kale xadiiska labaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل رواه أبو داود بسند الصحيح يعني حديث كان وحا تلماميا إن رسولك نعدلي نينكا كل بسنايا يعني دharkii haweenka iyo sidoo kale gabadha kula bisanaysa dharkii lagu talagalay sidoo kale ragga labadaba nabigu naxariisi nabadgelyo korkiisa haatee waa uu nacdalay hadaba ka xaqiijinta wararkaan amba ka saacid honastahan waxaan leeyahay in laga beero dariiqii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo sidoo kale diinteena islaamka waxayna faraysaa inaynu yani ka digtoonaado yani dhaqamada noocan sidoo kalena waa dhaqamo inagu soo badanaya oo gabadhu marka ay xirato dharkii ragga iyadoo ka diisa inay ku soo gasho sawir kaliya waana sawiro yani la oran karo baryahan dambeeto aad bay ugu soo badanaya social media ama baraha bulshada yani waxa la oran karaa gabdho ayaa bilaabay arintani isla markaana way sii faaftay waxaana la arkay iyadoo aad iyo aad u sii faafaysa arintani hadaba waxaan oran karaa anigu يعني إن هالكاس اللي جوتشو تيو أو أدواتيد إن يعني دمبي وين كوجو نقول كرتو ما دام سوي وحنا أي تهاي سوشيال ميديا هم عنه هذا حويان ما أنت تصور هذا صور لكتير فيسبوك أم واتساب أم إنستغرام يعني صور كاس إن لكو كان كرين قف أم شخصيات كوبان لكن وباهيو أو شير ما بدن لقصي شير جرين تهرو صور كاسنا سيدا سو كل قنيو صور سامين تيساله oo dad badani ay arkaan dambigiisa iyo waliba xumaanta ka soo raacda dadkaas oo dhan amba dadka tusaalaha noqotid inay dad badan ku sii deedaan dambigaas oo dhan adiga dusha u saaran doona waxaana kaga digaya inaad waxyaabahaas aad ka digtoonaadid xadiisadaasina aad ku dhaqantid waxaana leeyahay ilaahay loo toobad keeno bishii Ramadaan ayaanu dhawaan ka soo baxnay ilaahay acmaasheenii saalihayd amba wanaagii waxaan soo sameynay ilaahay naga aqbalo waxaana leeyahay bisha Shawaal hadda lagu jira 6 cisho ka soon oo ilaahay u toobad keen haweenka sidaas u dhaqmay waxaan leenahay ilaahay u toobad keena oo sawiradii aad gasheen ka toobad keena ilaahayna dambi dhaaf weydiisa ilaahay waa Ghafuur Rahiim sidoo kaleba waa Shadiidul Ciqaab marka ilaahay markaas toobadu waa ku furan tahay waxaana leeyahay haweenka Soomaaliyeed dhaqankaasi u horseedaya ilaahay u toobad keena markaasna toobadu waa furan tahay channelka xaqiijinta wararka markaas waxaan ku soo gudbinaa wacdi iyo waano iyo sidoo kale arrimaha bulshada iyo sidoo kaleba waxyaabaha ka taagan social media haddii aad doonaysid in aanay ku dhaafin waxaa markaas naga xasuusina inaad subscribe noo saarto isla markaana aad gambaleelka yarka furtay si ay ku soo gaaraan yani markaan sida u soo dhigno warbixinaha iyo waliba waxyaabaha aan halkan soo galino waliba u badan baryahan dambe waxaan badnayn wacdi iyo waliba waano kaliya ma haboona in lagu koobnaado yani inaad soo gudbisid wax gaara waxaana haboon marmar in la isxasuusiyo meesha dambeeto aakhira waana meesha yani hoyga dhabta ah aynu hoyin doono sidaas nabadgelyo ayaan kaga tagnaa daawadayaal sidoo kale waxaanu soo qaadan doonaa culimo Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrimaha caankana amba in la shabaho ay raggu shabahaan dumarka amba inay shabahaan sidoo kale raggu inay shabahaan dumarka culimadaas ayaan ku sii gabagabeynaa barnaamijkeena fadlan markaas waxaan sidaas iyo nabadgelyo ayaan kaga tagnaa daawadayaal muuqaalkana sii shargalaya si ay u gaadho walaalihiina Soomaaliyeed arintani ay si ugu wana qaataan amba ay halkaasi ugu istaajiyaan fadlan ka digtoonaada arrimaha noocan waxaana laga yaabaa inay iseejiso aakhiradiina dambeeto adduunka waa ayaamo kooban waana laga tagayaa fadlan markaa muuqaalka sii shargareeya oo la wadaaga asxaabtiina amba dhalinyarada ku foogan inay arrimaha noocan ay ku dhaqaaqaan amba sawiraanta noocan ay soo galaan fadlan wala ka digtoono waxa aakhiradaada ku seejinaya adduunkana waa ayaamo kooban ayaad leeyahay wanigoo saacid honesty waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo bushaaro waxaan ku haynaa laabtoobyo qiimo jaban kaliya waa $100 haddii aad u baahan tahay ay ku cajab galiyeen waxaad kala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada kaga muuqda laabtoobyadan waa laabtoobyad laga keenay dalka Norway isla markaana aan la soo isticmaalin
laabtoobyadan kaliya taa harddiskooda ayaa 8 GB sidoo kale way fiican yihiin haddii ay ku cajab geeyaan nala soo xidhiir lamarka shashada kaaga muuqda.